kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada wararkii ugu waaweynaa ee caalamka iyo Soomaaliya oo aad kaga barateen inaad kala socotaan barteena YouTube oo ay muhiim tahay inaad subscribe tiraahdo channelkan haddii aad wararkiisa ka hesho waxaana idinkugu soo gudbin doonaa halkan sida ugu dhaqsiyaha badan iyo wararkaas sida aad ku heleysaan waxa aan ku bilaabayaa oo qodobada ugu waaweyn ee wararkan idinkugu hayno kamida Kenya oo codsi cusub u dirtay maxkamadda cadaaladda ee ICJ-da iyada oo si weyn uga hortimid dawladda Soomaaliya waxa ay dawladda Soomaaliya ku qoonsatay go'aankaas cusub ayaan idin soo gudbin doonaa madaxweyne Farmaajo oo si dadban u weeraray madaxdii isaga ka horeysay waxaana idinkugu soo gudbin doonaa barnaamijka intaanu ku guda jirno wararkaas wixii ku soo kordhay Somaliland waxa ay ku sheegtay in dawladda Soomaaliya ay isku sawireen diyaarado aysan qorshahooda lahayn oo ay tilmaameen in iyaga uu ka horeeyay processkaasi diyaaraduhu ay ku yimaadeen Soomaaliya waa kuwii cayayaanka buufinayay wararka kale waxa ku jira Senator Fartaag ayaa sharaxaad dheeraada waxa uu ka bixiyay cidda qaldan Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland iyo madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo waxaan idin soo gudbin doonaa warkiisii arrinkaasi la xiriiray oo aad faahfaahin dheeraada halka ka heli doontaan isla wararka magaalada Muqdisho aan idinkaga hayno waxa kamida dadka shacabka ee ku sugan magaalada Muqdisho gaar ahaan dadka mootooyinka ku ganacsan waa mootooyinka ku shaqeystay mooto bajaajta ayaa sheegay in bajaajyada Muqdisho loo diiday in maran jidadkii qaarkoodna laaluush laga qaado waxaan idin haynaa muuqaalo arrintaasi muujinaya oo aan faahfaahinta barnaamijkan idinkugu soo gudbin doono inta aynu ku guda jirno madaxweynaha Jubbaland ayaa waxa uu hambalyo u diray 77 guuradii ka soo wareegatay aasaaskii dhalinyaradii ururkii midnimada ee SYL wararka kale ee waaweyn ee aan idin soo gudbinayno had iyo jeerna aad kala socon doontaan barnaamijku inta uu socdo waxa kamida halka ay marayso wabigii loo itaal waayay fatahaadiisa ee magaalada Beledweyne wararkaas iyo wixii inagu soo kordha intaynu ku guda jirna barnaamijkan ayaan idin soo gudbin doonaa oo ay kamid yihiin magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug oo ay gaareen diyaarado la sheegay inay buufinayaan ayaxa sida weyn ugu habsaday deegaanada Soomaalida oo aan isagana faahfaahin idinkaga hayno guud ahaan wararkii ayaa intaas maaragtay qodobadiisu ay tahay ee ku soo dhawaada iyagii oo faahfaahsan haddii aynu ku bilowno magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa waxa uu weerar dadban ku qaaday madaxdii ka horeysay xilli uu maanta jeediyay khudbad ku saabsanayd xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee 15 May oo ku beegan aasaaskii ururkii SYL 77 sano ka hor waxa uu madaxweyne Farmaajo yiri hanaankii dhaqaale ee dalka oo aad u hooseeyay markii uu xilka qabanayay sida uu isagu yiri oo markaan xilka qabanayay hanaanka dhaqaale oo aad u hooseeyay labo in looga tagay deymo tiro badan oo culays ku ah horumarka dalka iyo qodobka saddexaad oo uu ku sheegay xaalad adag oo ay ku noolaayeen kumanaan dhalinyaro Soomaaliyeed ah oo qaarkood ay ku dhibaataysnaayeen xabsiyo shisheeye iyo xarumo qaxooti sida uu yiri intaas oo dhan waa eeda ay leedahay dawladdii aniga iga horeysay ayuu warkiisa ku daray madaxweyne Farmaajo oo maanta jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysay Farmaajo ayaa sheegay in dawladdiisa ay hadda gaartay guulo taariikhi ah oo ay ku wajahday caqabadahaas isla markaana ay maanta u muuqato ififaalo wanaagsan oo dawladnimada xaggeeda tallaabo loogu sii qaaday sida uu warka u dhigay madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa sheegay inkasta oo uu Farmaajo sheegay in deymo badan looga tagay dawladnimada Soomaaliya iyo magaca dawladnimadaba haddana ma jirin wax cadeymo ah oo muujinaya deymo ay qaadatay ama ay qaateen madaxdii isaga ka horeeyay waxaana uu deynta caalamiga ah ee lagu leeyahay Soomaaliya ay kamid tahay dawladdii kaligii taliska ahayd ee madaxweyne Siyaad Barre marka ay timaado hanaanka dhaqaale ee uu ku sheegay inay aad u hooseyso haddana labadii sano ee dhaqaalaha Soomaaliya uu sameeyay kobaca ugu xoogan waxa ay ahayd 2014-2016 markaasi oo GDP-ga dalku uu gaaray 3.7 waa kororka dhaqaalaha ama dakhliga marka la eego sanadkiiba sida ku cad xogta bangiga horumarinta Afrika ee African Development Bank waxaana labadaasi xilli dalka madaxweyne ka ahaa madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud
kororka ugu wanaagsanaa ee dowladnimada Soomaaliya ama gaar ahaan dowladda inta uu joogay madaxweyne Farmaajo ay sameysay waa 2.9 waana sanadkii 2019 sida ku cad dakhliga iyo wax soo saarkii ay soo dharaandhirisay wasaaradda maaliyadda. Marka ay noqoto dhalinyarada ku xiran xabsiyada shisheeye waa run in dowladdiisu ay soo deysay inta badan oo ka mid ah dadkii xirnaa ee Soomaaliyeed si la mid ah dowladdii ka horeysay ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo uu madaxweyne Farmaajo dood badan oo uu u jeediyay arrimo badan oo la xiriira dhaliilo ku aadan sida ay u wajahday culaysadii taagnaa ayaa haddana dhanka kale waxaa lagu soo waramayaa in ay ahayd in dowladdu ay iyaduna qudheedu soo deysay ama ay bilowday wada hadaladii lagu sii daayay dadkaasi Soomaaliyeed ee xabsiyada ku xirnaa. Kenya waxay codsi cusub u dirtay oo la xiriira kiiska badda maxkamadda ICJ-da iyo Soomaaliya oo si weyn uga hortimid. Dowladda Kenya ayaa mar kale isku dayaysa in dib loo dhigo dhageysiga kiiska badda Soomaaliya ee horyaala maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda ee ICJ-da sida ku cad dukumiintiyo cusub oo ay dirtay. Arrintan ayaa ah khilaaf hor leh oo soo kala dhexgalay ama ka abuurmay oo labada dal u dhaxeeya iyada oo Soomaaliyana ay si xoogan uga hortimid damaca cusub ee Kenya ay uga baxayso inay cadaalad wajahdo. Dhageysiga dacwadda ayaa qorshuhu ahaa in uu dhaco horraanta bishan xigta ee June, hase yeeshee Kenya ayaa maxkamadda ka codsatay in dib loo dhigo muddo aan la cayimin. Kenya ayaa qiil ka dhigatay cudurka coronavirus ee caalamiga ah ee ku sii faafaya dunida oo dhan iyada oo sheegtay in ay ama uu saameyn xoogan ku yeeshay qareenadii ku matali lahaa maxkamadda sida ay ku sheegeen in la kala xakameeyana ay muhiim tahay in dalalku ay isku gudbaan iyo dadkuba. Saameynta ugu badan ayaa ah in dowladda Soomaaliya ay guud ahaanba kasoo horjeesatay damacaasi Kenya ee ku aadan in guud ahaanba dadku ay ama maxkamadda la hortago. Dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxay cabasho ka yihiin gaar ahaan wadayaasha mooto bajaajta in lacaga xad dhaaf ah laga qaado oo jidadkii laga xirtay taasna ay sameynayaan ciidamo ka tirsan dowladda. Gaar ahaan wadada cabashadu ka taagan tahay waa midda agmarta isbitaalka weyn ee Madiina ee magaalada Muqdisho. Wadadaasi waa wadada kaliya ee ka timaada degmada weyn ee Madiina oo wadajir iyo dharkiinley ka kooban, taasoo muujinaysa in jidadkii oo dhan inta la soo xiray haddana sida ay yiraahdeen mootada dadka wadaahi ama dadka ku qaada oo lacagahana ka raadsada in ciidamada dowladdu ay lacag weydiisanayaan. Erayada ugu badan ee la kulmayaan ayay noogu sheegeen inay tahay kala wareeg haddii aadan lacag bixinayn, waxaana jidadka Muqdisho ay yihiin kuwa culays fara badan la sii kulmayay maalmihii la soo dhaafay. Wararka kale ee aan idin hayno waxaa ka mid ah Somaliland ayaa waxa ay sheegtay inay tahay wax aad looga xumaado in dowladda Soomaaliya iyo gaar ahaan wasiirada xukuumadda ka tirsan ay isku sawiraan diyaarado aysan lahayn. Wasiirka beeraha Somaliland Axmed Muumin waxa uu sheegay in mar hore diyaaradahan ay uga dalbadeen USA iyo hay'adda FAO ay iyagu ka dalbadeen balse lagu cilad bixinayay dalka Kenya, sidoo kalena ay diyaariyeen shidaalkii ay ku shaqeyn lahaayeen iyo ilaaladii loogu talagalay in ay la socdaan ammaanka duuliyayaasha. Diyaaradahan ayaa lagu wadaa in gobolada Soomaaliya loo qaybiyo si ay uga qayb qaataan in la cirib tiro ayaxa oo ay ku sheegeen in uu yahay mid saameyn badan ku yeeshay dadka guud ahaan geeskan Afrika gaar ahaan Soomaaliya jooga. Wararka ugu waaweyn ee caalamka iyo Soomaaliya oo aad kala socotaan barteena YouTube ayaad dhageysanaysaan daawanaysaana channelkan haddii aad ku cusub tahay sidaan hore kuugu sheegay waa muhiim inaad subscribe tiraahdo sababtoo ah adiga waxba kaama dhibayso warar degdegana halkan waad ka helaysaa. Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo labada gudoomiye baarlamaan ee golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa maanta gaaray magaalada Muqdisho iyagoo halkaasi si diiran loogu soo dhaweeyay oo ay magaalada sida ugu soo biireen iyadoo taasina ay sii afjarayso inay ku sii xayirnaadeen ama ay in muddo ah ku xayirnaayeen wadankan la yiraahdo Turkiga oo ay joogeen markii ay qabtu dhaceysay. Senator Fartaag oo ka tirsan golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu sharaxaad dheeri ah ka bixiyay waxa ay isku haystaan labada madaxweyne ee federaalka iyo gobolka waa federaalka iyo maamul goboleedka oo kala ah madaxweynaha dowlad goboleedka
Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo. Waxa uu sheegay in tiro ka 3 jeer ka badan ay u kala dab qaadeen labada madaxweyne oo federaalka iyo maamul goboleedka kala ah, laakiin madaxweyne Farmaajo 3 jeerba uu diiday in khilaafkaas la xaliyo, halka uu taas bedelkeedana ogolaaday madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam in labada madaxweyne loo kala dab qaado. isla wararka madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabada maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee 15 May. 15 May oo ay ku beegan tahay markii la aasaasay ama lagu dhawaaqay ururkii xornimo u dirirka ahaa ee SYL. dhaqdhaqaaqaas ayaa waxaa maalin kasta marka la gaaro taariikhdaasi la xusaa guud ahaanba dalka iyo dibadiisaba munaasabada arrintaas la xiriirta, inkastoo cudurka dunida oo dhan wada halakeeyay uu saameyn ku yeeshay. xisbiga gurmad la yiraahdo oo kamid ah xisbiyada Soomaaliyeed ayaa isaguna hambalyo waxa uu u diray dhalinyarada Soomaaliyeed aawada 15 May. isla wararka xisbiyada kalena waxaa ku jira xisbiga awoodda shacabka la yiraahdo oo kamid ah xisbiyada ka dhisan Soomaaliya si weyn uga howlgala ayaa kamid ah xisbiyada u hambaliyay dhalinyarada Soomaaliyeed, iyadoo qoraal uu soo dhigay barihiisa bulshada hogaamiyaha xisbiga awoodda shacabka Thabit Cabdi Maxamed uu ku sheegay inay tahay cududa dhalinyarada in looga faa'iideysto si wanaagsan oo kala dab qaadasho looga gol leeyahay markasta. guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynaya wararkii ugu dambeeyay caalamka iyo Soomaaliya. Inteena mar kale kulmi doono nabadgelyo. Channelkan subscribe ha ka hilmaamin. waadna mahadsantahay.